su-aashaan ku weydiinaa waxaa weeye sidee u aragtaa dowlad goboleedka laga samaynayo Soomaaliya maxay kula tahay dowlad goboleedka Soomaaliya la samaynayo kale waxay ila muuqataa qabiilkii dadban oo nooc kala ah qaar qabiilaadka kamidana in la aqoonsado qaar qabiilaad kamidana in la aqoonsado saas ila muuqataa kaleeba waxaan u arkaa sadbursi wax la markii al-shabaab dalka laga sifeeyay waxay noqon doontaa insha Allah ta'ala dadka hadda waxay ku cunsiin dawladda fiican saas waa al-shabaab culaysay laakiin ra'ay ahaan ana waxaan qabaa inay ka daran tahay dadkan hadda gacan ku rimiska ee la sameeyay ru'aantii ana waxaan u arkaa dawladda inay saayaan dad ayaga danahooda ka shaqeynaya inay yihiin mid kale waxaan u arkaa Soomaaliya dhan ma aha laba qabiil oo qura bal Soomaaliya waa qabiilad fara badan haddana waxaan u arkaa dowlad goboleedka la sheegay in dowlad goboleed inta la dhawaadana madaxweynaha dowlad hebel dowlad goboleedka hebel madaxweynaha Soomaaliya meeqa madaxweyne yeelan kartaa marka taas waxaan u arkaa Soomaaliya dhowr meel in loo qaybinayo dhowr madaxweyne loo yeelayo waa kulli waa wax meesha ku jiro sidaan u arkaa aniga hadda koorna waan ka hadlay wax dowladda Soomaaliya oo istaga oo loogu baahan yahay ma jiro waan xasuusanaa waxaan ka warqabnaa ifbixi oo soo ifbaxay al-shabaab markii la bixinayay in odaya oo la yiraahdo ra'iisul wasaare laga dhigay farmaajo runtii wuxuu ku taamayay sidoo Soomaaliya ayadu buuxda ay isu qamsan lahayd meel ugu soo jeesalahayn waan la soconaa in si qasab ah uga degay ra'iisul wasaare xilkana ku tiray ra'iisul wasaaraha cusub la magacaabo waxaan u aragnay inuu noqonayo sidii tabti farmaajo inuu waday haddana wasiiradii farmaajo oo magacaabay kulli waa la bedelay waxaa la gaaray 500 oo xildhibaan in la magacaabo xildhibaanadii waa la soo dhimaa leeyahay laakiin umaleeyma inay soo dhimayaan waxaan qiyaasayaa inta inay ka sii badan doonaan maadaama dowlad goboleedyada ay badanayaan 15 dowlad goboleed inay dhici doonto 15 madaxweyne inay Soomaaliya ka talido 15 madaxweyne dowlad ay ka talido ma jirto caalamka runtii markaan isu sheegno hal madaxweyne iyo hal ra'iisul wasaare ka taliyo haddana waxa u aragtaa shir baa lagu qabanayaa xamar hadda shir baa la qabanaya shirkii maxaa lagu heshiiyay maxaase ka soo baxay go'aankiisa muxuu noqday maalin walba waxaa la qaban doonaa shir go'aamadiisa ay ka sii dari doonaan mid walba ay dhici doonto Banaadirland Kismaayoland Hiiraanland ay dhici doonto Cadaadland ay dhici doonto Baydhabo ay dhici doonto Bulaxawland ay dhici doonto Gadeland ay dhici doonto Boosaasaland iyo Hargeysa kale aniga waxaan arkaa in Soomaaliya aad loo kala jarjarayo sidana Soomaaliya istigeeda kuma jiro waxaan ku weenayaa dadka Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan kana dhibiyaan qaybinta Soomaaliya la qaybinayo insha Allah ta'ala wayna imaan doona waddan Soomaaliya u doodo oo wadannimadiisa ay sax tahay dadkan ay xusaan waa imaan doona insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.